halo mudane hariish chaturvedi waa taqaanaa waxaan rabaa ninkaas inaad dunida ka musaafiriso maxaa kale maya isaga dilaysa oo keliya okay aragtiisa dhibaysa waayahay mudane هلو وريا dhageyso fan broch arinteena booliiska dhan waa ogaadeen haddana waynu soo dawahayaan adigu waxaan ku dhihi lahaa magaaladan waa inaad hadda isaga tagtaa يسيب وريا حركاتك يا ري gacmaha sakar u taag كنا عديار الآلي دولا محل ترجمة استوديو فان بروش مقدشو
maalmahan ciidamadeena mid ayaa loo ugaarsanaya taliya midaas anaga baan aragnaa laakiin maxaan ka qaban karnaa imise ciidan ayaa dalka China noo jooga anaga 20 haddaba waa loo ugaarsanaya waa in arintan loo ogaadaa taliya waxaad la socotaa ciidamada Chinese-ka maalin walba haddii ayna soo weeraraan anaga dhibaato ayay noo tahay marka waa inaan ka hortagnaa awooddeena maalinta ka dambaysa way sii yaraanaysaa goormay la ogaanaa marka waxaan ogaan karnaa mid kamid ah markaan gacanta ku dhigno ilaa hadda mid kamid ah gacanta kuma aanan dhigin talo ninkaas yuu noqon karaa maxay tahay hala baaro taliya waa in la raadiyaa qofku noqon lahaa qofkaas dhulka meesha ugu qaalisanaa idin sii hooyaa weliba Bombay dhexdeeda waay lacagta iska soo shuba manodra maxasiyay kooba dhulka anaa sii haddana waa ka naqsaday anaa iska leeyahay nuutira bajeeka أنا بعي إسبطار جون أبراهيم يميت أدنى دول ما صوتونتي جيكي دول بحيو يا ماما غاشي مايا أنا قال كان حاوم هذا أديك دول كنا فوق ترى ميلو ذي ميداس مسوون خصوصية مايا معي لو سي أو يحسوسي أديك أود هذا كنتش تيدا كنتش نبي إلي لو فاكر بكيك تاجم حقيقة خادي هو بلان ما يودي يا أبو أنا قاعد هو بحسن لها أديك أنا تدشوا فرصة ما هي أبتيو جبان نصوعايا أنا سيبها ما يسك جبوا وفلوتي يا عكوس ضدو يكون قال أديك جورنينك أما سك كان وكادي إيه دولو aniga xaaskayga 5 sano ka hor ayay dhimatay kadibna naxariista aniga waan ilooway balse marar badan isku dayay dadkina dib u geysto laakiin waxay la tahay maanta inaan fursad u helay inaad idin jijibiyo laakiin waxa laga yaabaa adinka xataa maanta inaad ii guulaysataan maxaa yeelay 10 ruux ayaa tihiin kabaaj laakiin aniga mid aydan kilooway inaa idin sheego laakiin aniga hadda waxaan doonayaa wax walbo ugu horreyn adiga inaan ku fahansiiyo هاي ركل ما يسا كالي ابو كتوبه ايجتين كالي متلكم اي سو وحوسه وريا قال انك بانك كجرجر هذيك البستول كدجي لك بريسيس انا ديباي ورني هو والعرب تندد ما هو يقول دمبيخ وهيجت تجينا وريا عرب يقفل الباب وريا ورطل وكاسا نوت صاحبه نقصه ورمرشد قدام بيسجي لي باور كاسو يا معاكو وداي شوف هذه وحملوا باور كنا ولوس كيلي وكجرا محسنا يا كيف ورويشا يمد يا ويشا قادو أبو أبيسو سس هاي أبو وريا نيكا أبو جريك أبو وكتوغا ندجي وكتوغا بين آدم جريكا تاي ندي أبو كم فير ما هو ولا غياوي بس وعرقني بحيتا وكتوغا ندي عمرك الله كوسو أبو ويلي ميجي تركين مي هذه مي دوا سعوتا ويلي شرف إيه صورة mudane wasiir falkan la ayaa ka dambeeyay banu sheegi kartaa arrintan idinka buubuuninaysin oo wariye maayna booliiska waxay rabaan arrintan inay wax ka qabtaan ay baaraan markaasaana war idin soo gudbinaynaa ma ahan inaad dawladda sharafteeda meel ugu dhacdo waayahay dawladda India ilaa hadda arrinkaas maxay wax ugu qaban weysay inay ka qabato diyaar ayay u tahay ma ahan marka anaga sharafteen inaad ku ciyaartiin iyo sharafta ciidankaba kaale mudane wasiirka waxa uu ka dhawaajiyay dawladda India
in aysan ka dambeyn ugaarsashadan dadka la ugaarsanaya ay ka dambeeyaan dowladda shisheeye dembigan baaristiisana waxaa loo xilsaaray dowladda Shiinaha ilaa iyo hadeertaana wax baaritaan ama si kala cadeyn ay keenta habeeraatee ma jirto inkastee baaritaanka ay hayaan miska saartayna waan iska saaray adiga noloshaada saan lema ahaane waan ku qasbanahay burcad inaan safeeyo soo ma oo weliga adiga lema bursanay raggaan maxay aniga booliska aan soo ma waan ku qasbanahay marka burcad inaan wadanka safeeyo maxaa dhacay booliska lama lamiya oo tuugada soo qabto oo weliba shacabkooda wax u qabto adigoo kaliya ma joogtid maya कभी ना कभी तो daawadayaal ku soo dhawaada warka saacadlaha masriyaash warqad ayaa ku timid okay qalinsi qalin qalin beero ilo lagu kalsoon yahay ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka India ayaa waxay sheegayeen in dawladda China loo xilsaaray dilkii loo geystay ciidamada sirbaarayaasha ee waddanka India ka socday ee doogay waddanka China laakiin arrinka dhibka meesha ka taagana wuxuu yahay eedan lagu soo leexiyay dawladda China ma tahay mid ay wax ka qabanaysa ama waxay u celinaysaa waddanka India sidoo kale dawladda India waxa laga rabaa inay soo sheegto ciidamada sirbaarayaasha ee waddanka China jooga kuwaas oo ka tirsan ciidamada RAW laakiin dawladda China waxay rabtaa inay ogaato ciidamada India meesha joogta si loo helo dilka dadka loo geysanayo kuwa ay yihiin iyo kuwa wax geysanayaba dawladda India ayaa waxay u xilsaartay dawladda Shiinaha labada qof ee ciidanka sirdoonka ayada ka socday dilkooda cidii ka dambeysay in ay gacanta ay ku soo dhigaan dawladda Shiinaha waxay haysaa baaritaano dheeraad ay ku soo saar leed labadaas qof ee sirdoonka ee la dilay hoy harish ka dhafarkan bad iska dhaaf guriga ma tagnay anaga ma joognaa markaan baxnay guriga ma tageeno nus saac meeshaan taaganahay naga dhaqaaji meeshaan ku baryahay waa waree runtaa ma waan daanay baabuurka aniga ma wadaayo sababtoo khamri qof cabaayo gaari ma wadi karo waa sacantahay marka sidaa darteed adigaa wadaayo abaaga weynka idewra waxay sheegtaa xaggee adiga lagu bedeli rabaa marka hore waxaan rabaa inaan ogaado ii sheekano please waxaan rabaa inaan ogaado si aan ku badbaadiyaan rabaa maya waa ku baraya ii sheeg waxaan rabaa inaan ku badbaadiyo adiga naftaada aan difaaco xaggee adiga waxaad ka tirsan tahay ciidanka sirdoonka soo maahan laakiin aniga boolis ayaan nahay boolis hataa anna sirdoonan ahay labadeena sir iskuma sheegayna waa kala qarsanaya maya annaga fiiri haddaan boolis nahay dilkeena waa caadi laakiin adiga sirdoornaan tihiin dil haddii idin geysto dowladda India way qariyaan laakiin anaga boolisdaan nahay dilkeena anaga lama qariyo dowladda hadday qarisa maxaa ka micnaa saaxib waxaadna dhehaysaa nin ciidamada sirdoonka ka tirsanaa oo hindi ahaa ayaa la dilay oo weliba geesi dhala ahaa ciidamadeena sirdoonka ee noo jooga waddanka Shiinaha waa la dilayaa midaas waxaaba ka sii daran sirta ciidamadeena hal nin oo askari ayaa ogaaday midaas sidee ku dhacday bal ii sheeg yaashu waa askari aan ku kalsoonahay ee igu wac yaa soo gudbay igaraalna ku mudane gudaha laga waca
yaash hore soo gudub yaash ninkan waa shandaal wixii warbixin aad haysidna asaga ku wareeji wuxuuna ka mid yahay ciidanka sirdoonka aniga hariish amar wuxuu igu siiyey feelkan cidna inaanu dhiibin marka adiga sidee kugu dhiba ii sheeg sidaad ila hadlaysaa adiga hariish wuxuu ka mid yahay ciidamadeena khaaska hata wuxuu aanay saaxiibkay laakiin labadiina isdejiyabal labadiina waxaad tihiin laba ciidan oon aad ugu kalsoonahay mana aha inaad isqa qabsataan ee nidaamka ilaaliya yaash harish buugan wuxuu siiyey 2012 taas micnaheedu maahan taariikhda ee waa baakh ka mid ah beejajka buuggan aad sidato sida nambarada meesha ku qoran u daawo marka hore waa lambar 6 kadib 8 haddana 12 okay hadda waxaan kuu sheegaa tirada 6 inay u taagan tahay s tirada 8 inay u taagan tahay b tirada kalena waay inay isbay tahay oo sirdoon aan nahay waan ognahay annagaba weliba nala daba taagan yahay maxay kaloo micno ay kordhinaysaa haddaba intaas daa og tahay aniga ma ogi balse yaash waxaasoo dhan uula socdaa ka waran enjoy my book taasna waxay u dhigantaa EMB ems waa safaaraddeena ku taala hungariya dad baana weerari rabo waana in la ogaadaa maya arrintaas anigu gudaaya sidee lagu gudaayaa ciidankeena ayaa shaqo kula arrintaas haddaba waa ciidankaaga dadka akhbaarteenna gudbiya sirteennana ciidankaaga baxsho soo mogid middaas waa macquul sababta hawshan adiga kuma dhaqaaqi kartid maxaa yeelay adiga waxaad tahay nin boolis ah xirfadna uma lihid hawshan haddaba waxaad ogaataa wax walba inay isbedeleen marka hore dadka guriga ayaa lagu weerari jiray laakiin hadda meel baa lagu weeraraa laakiin adiga mid hayloobin hawshan inaadan khibrad u lahayn haddaba waxaad ii sheegtaa ninka kiiskan u xilsaanaa aawe idhegayso jandaal anigii aamin waxaan ku kalsoonahay ninka inuu shaqada ka soo bixi karo yaash waxaan rabaa inaan kuu sheego hawshan inayna sahlanayn sababtoo muddo 2 sano ayaan aniga ku guda jiray mudan iga raali noqo saxiix ayaan kaa rabaa yaash hore u sii dhaqaaji aniga ayaa kaa daba imaada okay hawsha aniga aan kuu diri ma soo dhammaystirtay fiiri waxaan u baahanahay keke xageen ka heli karaa hawshaada weli qabyo waaye soo dhammaystir hoo waaya ya keekey kama jikaakur waa aniga waa arrin fiican fiiri maxaad ka wadaane adiga aadaabtii akhlaaqda laguma soo barin miya ahaa si fiican layd soo baray idinka raggiina maxaad dumarka u yeestaana haddaba waxaad ogaataa dhowcilada iyo dumarka inaysan hawshan ka soo bixi karin sidaada bannaan bayaa tahay adiga yaash ciidankeena ayuu ka mid yahay okay ciidamadeena sirdoonka ee lagu layn jiray waddanka shiinaha dilkooda ayaa loo baahan yahay in la soo ogaado waxaana loo xil saaray ninkan yaash la dhahayo adigana waad la shaqaynaysaa aniga dood ayaan ka qabaa nin xunoo boolisa wax tababar aanan haysan ilama shaqayn karo waa nin sirdoona inuu ila shaqeeyo waa nin sirdoona ninkan oo weli baqaas ah ninkan aad arkaysaan wuxuu ka tirsanaa jiray ciidankeena hawsha waxaan isla bilaabnay 1980kii 2012kii bedel ayaa lagu sameeyey 2 sano wuxuu la shaqaynayay nin wasiir ah 1 sanana wuxuu qaatay fasax aroosa haddaba anaga burcad ayaan daba taagnayn booliska arrinteena maxaa soo dhex kasii sheeg muhiim ayuu ku yahay maxaa yeelay labadiina waxaad la shaqaynaysaan nin wasiir ah wasiirkaas aan idin sheegayo waa isla wasiirkii maxaa yeelay meeshaas tixraac ayaad ka helaysaan sidaas ayaan ugu talagalay aniga shaqooyinka qaar markii aad qabato waxaa laga yaabaa dembi dhaaf amba wax horumar inaad ku gaarto hadalkayga ma ku dhacay
halkaas nin ayaa idinkaga horeeya oo warbixinta oo dhan idin sii doono sida aan filayo hawsha niila diri waad gudan doontaan halkaanna waxaa ku jiro staafka meesha jooga warbixinadooda siimkaaradiina halkaas ayuu ku jiraa aniga safar ayaan aadi rabaa waadna ila soo xiriiraysaan mudane gruubkan soo madaxu maahe طبعا adiga ayaa madax u ah Some champagne for you, ma'am? aniga sidaan filaayo asigaa tikidka kaa soo bixiyey soo maaha yaa haaye maxaa yeele mar walba adigoo kaa fikira soo maaha war heedha tikidka lacagtiisa aniga ayaan baxsada marka hore afkaaga edab iiga yeel beelaa tahay okay arrimaha tikidka waa fahmeye hoteelkan asiga maa bixiyey lacagta ii sheegno adiga waxyaalo badan ayaa kaa qaldan hoteelna agtar ayaa dego meeshaan degannahay cid ogaanaysa haba yaraatee ma jirto hoosheenna iyo habkan hoolaheen u qabsan laheenna halkaan ayaan ku degaynaa sidaan wax weliba aan u kala maarayn lahayn haddaba sideed ku ogaad safaaradda inay gurigaan noo karaysay iimailkooda ayaan galay sidaas ayaan ku ogaaday ya warisiidaa marka hore meeshaan wax banbaa haba yaraatee oo ku jirto ma jirto adiga waxaa rabtaa inaad korkayga taabato ma marsiya ayaa raadsanaysaa mar halo mudane hawsha waa lagu guulaystay adiga sidee ku ogaatay maba inay ku jirtana adiga sidaad u ogaatay aniga meesha aan ka degi lahayn magaaladan isla burcaddana sidaasoo kale ayay u ogaadeen anaga meeshaan degi rabno anaga haddii aan boolis nahay ma waxbo waan dareemi karnaa adigana wax loo baahan yahay taxadir badan inaad samayso hadda halkii uu ku dhacso ma nakeen marka waayay xaggee aadnaa ii sheeg meesha agtarada ay degaan halo mudane waa keekee waan ku faraxsanahay badbaadadaada mudane dadkii barnaamijkan ka dambeeyey waxay u haystaa annaga inaan dhimannay nala soco marka adiga aniga ayaa idin soconaya waan ka xumahay laba ciidankeena ka mid ah ayaa lagu dilay magaalada budapest meedadkoodana waa inaan dib ugu celinaa dalkooda si ayaga loo aaso run ahaantii meeshaas waxaan ku weynay laba qofood oo aad agteena muhiim ugu ahaa magaca ciidanka iyo sharaftooda kor u qaadi jiray dowladda hungari waxaan ka codsanaynaa dadka dilkan ka dambeeyey inay garab nagu siiyaan soo qabashadooda weliba sida uga dhaqsiyaha badan maasanidiin meelaha hadda annaga aan sawirnay sawirrada orjinaalka waxaan u dhiibaynaa madaxdeenna koobigana waxaan ku reebanaynaa laabtoobkeenna howl fiicaneed qabatay waxaan ku leeyahay guul wacan xagee u socotaa adiga adiga hooshaadoo keliya ku ekow aniga inteeda ayaan qabanaa okay maalin wanaagsan
wayne inankaa mahadsanid adigaa mudan caadi matid yarkan هو كفاية عبد kafay aniga ma cabo waa la ii sheegay dadka aan ka shakiyey liisaskooda iyo warbixintooda oo dhammaystiranna waan soo diyaariyey adiga khamri ma cabaysaane shaqa ayaan ku jirnaa waqti wax la caban lama taagno maxaa war ku dhacay indhaha kala qaad qofkaan ayaan u baahanahay waa dambiilaha waa asiga mister sharma ninkan waa nin ganacsada oo weyn aqoon fiican ayaanu u leeyahay dalka beljimka ayuu wuxuu ku leeyahay ganacsi waddanka jaynahane wax xiriiroo kala dhexeeya haba yaraatee ma jirto maxaad damacsan tahay marka ninkan aniga aqoon ayaan u leeyahay asiga qofna saaxiib lamaa shaqadiisii gurigiisa ayuu u dhexeeyaa hoo baaro haddii aad baaraysid maiga hubtaa middaas hooy akhi haddaad adiga baarinaysid baaro waa kanaa laabtoobkee qofka ugu horreeya oo laga shakisan yaha waa ninkan magaciisana dimoogo ayaa la yidhaah asiga weligiis shaqadiisa shaqo dhaafsan ma qaban laakiin warbixin waxaa igu soo gaartay waayaha dambe habeenkii in uu shaqeeyo uusan nasanin waa inaan baaritaan ku samaynaa asiga qofka labaad ee laga shakisan yahay waa ninkan magaciisana figos ayaa la yidhaah gabadhaana muddo 3 bilood ka hor ayuu honkow ku guursaday halkaas ayuuna 7 ku gale waxaana la sheegay dadkan inuu xiriir la leeyahay iyo arooskan degdega ah qofka saddexaad ee laga shakisan yahay waa amrisiin waxaana looga shakisan yahay madaxda inuu ka tirsan yahay muddo 3 sanaana wuxuu ka shaqaynayay safaaradda indiya ee ku taal hungary suuriya waa nin khatar ku ah habka kombiyuutarada waxa loogu dhaco waxaana looga shaki qabaa dowladda sirteeda oo idil asiga inuu kombiyuutarka ku dhacay weerarkii ugu dambeeyeen in uu lug lahay ayaa looga shakisan yahay dowladdanna waxay diyaar u noqotay in sirdoona ay nagu darto caawaayo noo imaanayaa ninka annaga hadda noo soo socdo iimaylkiisa haddii la galo aniga shakigayga run ayuu noqday wuuna noo imaanayaa hadalkaa waa mid jira qorshahaagana waa mid tigsan ninkaasna wuu imaanayaa maya ilaa had ma imaan kaamirada indhaha ku haynaa waa 4 saac oo rogi dhiman mahadsanid
waa asiga ninka aan ka shaki qabnay waana kan okay kaamiradan soo dhaweyna okaa waa imaanayaa soo idima dhihin waa kanaa wuu yimid ninka taleefon ayuu dirsanayaa marka waa inaan ka hortagaa ninkan taleefon ma dirsanaayo ee meesha ayuu sawiranayaa ninkan waa nin howl kala fulinaya yaash ku aaba adiga yaash maxaa dhacay maxaad samaynaysaan amarla'aan saad u baaraysaan su'aasha ay weydiisa aniga ayaana ku weydii loo baahan yahay soo soco soo socaysaad keeninay maxaad iga rabtaan aniga haa soo fariisi halkan fariisi halkan fariiso kan mobil dhegaysta taleefanka aniga ayaa iska leh sidaad doontaanna ma ka yeelan kartaan halow yaash qorshiin waa okay laakiin qof qaldan ayaad qabateen qofkaas iska fasaxa maxaa tiri qofka aad raadinaysaan weli ma imaan yaa ka hadlaysa adiga sharma ayaan ka hadlayaa aniga ayuu ila joogaa sharmaa waa haya adiga ayaa qaldan waad khaldantihiin idinka qofka aad raadinaysa qofkaas ma ahan okay aniga kugu soo celinaya okay bye yaash wow naan moodada shaangulow baan ka gatay waa ku sidee shit shaangulow meesha maxaa ka qabanaysa adiga moobilkayga ayaa iimayl laygu soo diray waxaan lay sheegay imbashatoorka inuu halkaas imaanayo iimaylka qofka loo soo diray ma adiga haa adiga safaaradda wargeli adigana kaamirada si sida waxay duubtay dib iigu soo celi soo celi bal haddana bahaws dheh sum dheh haddana haddaba waa kana qofkaa raadinaysa shib sharmaa filimkan waxaa lagu tarjumay studio famroch muqadisho
halow waad iga saxneed ninka waa shif sharmaa xaggee joogtaa adiga anigu waxaan joogaa guriga bannaankiisa anigana balakoonka ayaan saaranahay haddaba asiga guriga kuma jiro laakiin guriga qof ayaa dhex joogo fanbroch.com fanbroch.com has dhaqaajini waryaa adiga lemea naga tag waa naga cabsiisee كيكي إلى هذا محكول عين كيكي إلى هذا آوي نينك انتوك بحي نينك هو بحصدي هوس مسودين الله را
يا أخي أديك بستورد وأسكاي ستاو كليه كرتي أكورد مال هيدا يقليحي هذا أنا كرتو له إن أكو غريدو هاي مكو برويا إيه adigu wax baad iga qarinaysaa iga raali noqo kuma fahmin ninkan hore isu taqaanin soo maa haa faraanta ayuu ii geli rabay haddaba muxuu ku keenay inuu ku dhaho xabad miigu soo ridi kartid hawshaas mid aniga ii taalla ma aha balse aniga ii taalaa aniga ilma aha ninkan inuu hawshaan qabtay okay adiga sideed ku caddayn kartaa marka ninkan ramihiisa run ahaantii ninkan warbixintiisa aniga markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inuu yahay nin ganacsada ah weliba dalka biljamka ka imaaday marka ilma aha faldambiyeedkan inuu asaga geystay maadaama ninka arrimihiisa wax ka akhrisatee wax qaasaa ka ogaata ma jiraan maya balse waxaan keliya ogahay ninkan inuu nin ganacsada yahay oo howlo kale uusan faraha la gelin okay ninkan wax famil ah ma lahan miya asiga famil ma laha asigoo 3 jir ah ayay hooyadiisa aabiisa dhinteen kadib meesha agoonta ayuu ku soo koray waxaana uu soo baxay sponsor maraykanku aad meesha ayuuna wax ku soo bartay alxaasil ninkan wax dembi ah ma laha caawana waxaan rabnaa inaan waddankiisa ku celino ilaan wax dembi ah waan ku waynay sidaas ayay dowladda China go'aan ku gaartay waxaan jeclaan lahaa ninkan gacanteeda in la soo geliyo si aan u baaritaan ninkan waxaan jeclaa aniga hindiya in la geeyo oo baaritaanne hindiya gudaheeda loogu sameeyo sabab laakiin aniga halkan ugu samayn karo hindiya in loo qaado aniga ayaa go'aan ku gaaray go'aankaaga waa inaan jebiyo aniga ha iloobin adiga inaan madaxda kaa saraysaanahay saaxiibkayga ayaa la dilay waan ogaa saaxiibka halkaa inuu ku geeriyooday qof waliba qof ayuu xiriir la lahaa dagaalkaanna hal qof ma quseeyo yaash gabadha hadalkeedu wuu saxan yahay ninkan sida lagu shakiyey waxaan ka aragnay isma laha haddii aan dharka dhanka saarnay xataa bahashan oo keliya ayaan ka helnay baaritaanka haddaad dhammayseen jirkayga ku nuursanne dharkayga ii keenaan gashte hoo maya dharkan dharkayga ma aha huudhey waay dharkan maxaa dhaca jeeke ma ii malayseen aniga huudhey ma gashto dharkayga originaal oo ah ii keena dharkan huudheyda iyo dariiskiina isku qiimo ah qiimahayga meel ha ugu dhicina ee dharkayga ii keena hadallada qaad afkaaga waa inaad ka ilaalisaa sabab maxaa dhacay ilan waxaad qaabdaradan igu hadlaysaan aniga ayaa macnaha burcad ah soo maaha burcadaad tahay ciidanaad tahay waqtigaa isaga luminina ee anigu waxaan idin dhihi lahay guuldaro waab idiin soo hoyatee dharkayga siiye ma dhammaysatay haddaba dantaada adigaa yaqaan soo maaha taliye safaaradda waan ka soo baxnay hal sac kadib waan kula joognaa annaga hal sac adduunya dhanaa lagu xoreyn karaa seerabtiin middaada kaleeta adinka ima wadi kartaanoo eelaboorka ima geyn kartaan go'aankii ina gaartiin ha u malaynaya sababteed ma weydiiseen sababtoo ah adinka tiimkiina wuxuu la mid yahay tiim boqortooyo kale gabadha bistoole kugu qabanay xabadda maridi karto ninkan gadaasheeda fadhiyo khatarta iska dhigayana naagtiisa uu badbaadin waaya maxuu taraa marka nin aanan reerkiisa xafidi karin shacabka muu xafidi karaa middaada kaleeta adiga
miskoolka badan iska yar haddii kale in networkaaga biisiya laga dhigaa macnaha waa lagu diraa hawadaad aadee yaash ninkan hadalkiisa ka soo qaad ma lahan isdeji adiga haddaan kuu digaya hore maa miskoolka bilowda caadi waay waa socotaa adiga fiiri saaxiibow qoftaadii hore 18 jir ma aheeno sida qoftaanoo kaleete ma u war dheereeno afdheerida ma arkino lama heli kara in laga dhiga qoftaan hadda saas ku socotaa mar dhow ayadan lama heli kara laga dhigaa fiiri isku naxan ku dhiga xarayo aamus waan kaa laahay tartiib tali qoftiga qabay akhay qofta waa cidiya sarabta iyaga fiiri laba qof ciidan ma idinka maqno ballan waa qoftaana waa la raacinaa balaayada carabka dheer hadalkaaga haddii xadaa u yeeli waysa xad ayaan ku yeelaya ogow okay waa aamus كيكي سيرك سيرك أنا هراء إذن كوبو شيء أنا بورك ولي لما قال واقنا ضربك لما هيلي كرا لقى دقي كيكي سيرك سفيع وخبر لو موت عن دو تاجر لما هيلك laga dhig kan kale tan badbaadin kartaa marka waraga aamus aan ku leeyahay war kuleetiga inaad iga qabatid kuma badbaadisay dadkan iska dhiciyaan ku dadkan iska dhicis ka rabaan war heede ma aamuska mas'uulka ee kugu jiida adiga maxaa ku dhaca maxaa sameynaya yaash maana tahay adiga bas lama heli kara ka dhigi doona bas waa aamusa marka bas waa aniga amarkayga ka foq ninka fiir waxba iswaan soddon sakanad haysataan soddon sakan meesha miyuu geen kartaan marka ii sheeg adinka ku weydiinaya macnaha hadalkiisa waxay u dhigantaa jidka ayaa rag kale igaga horeeya wax garadaa tahay adiga fiiri wiiftadii kugu dhicin baabuurka xoog wada dadkan xabad miigu dhufanaan adiga le ku liif weeyaan iska jir waftaada ugu khamaaree waddadaad ku socotid ciidankaygaa fadhiyo wariga aamus kay fasaxa ha isdilin adinka dabaqa hoostiisna gee xoogaa meeshaan ku nasano waayahay كيكي سلالة dhankan u soo socda xirin qolkan anigoo ii kiraysan yahay annaga ciidan ayaana hool ayaanan haysanaa waayahay maxaa rabtaa inaan qolka galna ayaan u baahannahay wax yar ku nasanno waayahay soo gala yaash gudahana soo geliya
هذا وقت أنيقا صوت بدن أنا هيسري يقرشيني حاجة وما هيشك ما حد ما حسنتين ما حس سميرتان ياش جوج أديك نكان هدي أديش موقت أنا جنا دمبينا نقول نفتر كان وكبري هدي لنا كاسيدا يريسي كان ما يرين كرتا جيت كان أرير كان أنا كو يريناي وايه كان هو أرير يري كان ماشي نور صوت المام حقي هتلو ياش معقولة ياش ماشي نور صوت المام واتنا سو ما جيدنا واتنا هالكان واي ماشي نور صوت المام ياش أنا وقت ما يسنا 8 دقيقة وكلي أيام يسنا وحسمينا ما نقانو ياش waxaa ogaataa anaga waqti badan inaan haysanin waa ku bariyaa gaariga si fiican u wad xoog u wad okay yaash waxaa loo baahan yahay waqtiga loogu talagalay anaga meeshii noola tilmaamay inaan ku gaarno waa ku bariyaa gaariga si fiican u wad yaash cada waajidka noo taagan waa ogtaa gaariga si fiican u wad dhaqso waa iigu jirtaa jamaal badani muxuu sheegaya yaash dhaqso wad gaariga waa taas meesha noola soo tilmaamay halkaas waaye aw meesh ishak wariyaa aaw ninka ayaan ku leeyahay ما تهدشت مع الله مصنطاي ماشي وقتك لو باهنا واد إمادين لكن دولك ماها دبقة ugu koray waa inaad tagtaan fiinta kore ma fahanteen فيروينكا كده لما هيلي كرا وقتي كدم فيري أنا أديك أسوهرنا هدي أنا أدي أهشينا كورن إسكا كي توتوك أبو إداف دنو وأقول دافي كرا مكاس هذا إداف يا واي ترتيب ريا ياش كاري ياش محسبني ياش وقبري أديك كهذا خيانة ما حد ولا قتل أديك دلك هاي دلك هاي ما حد خيانة العقدة تسمع العقدة تدو حلو سمينسا سيدكو كان دلك هاي نت خيانته إيش هذا عقدة كذا واحد وما سمينوي مو أنت أديك يا كذا دعي وحس وين ما حد سميسي إيش معكو كلفي
waxaan u baahanahay adiga ayaa hayso adiga ayaa gacantaada ku hay waxaan yaash hadda ayaa waqti naga dhamaado waa ku baryaa ninkaan waqti lumisaayo walaa waqtigii unaga luminin fanbroch.com horaa liigu sheegay nin iyo naag inay soo socdaan oo aniga ay rabaan inay baaraan laakiin maba ogeynba aroos iyo aroosad in lii soo diraayo soo dhowayntoodaaba tirada ka badan maxaa yeelay meeshan waxay rabtaa zaa'id loogu soo dhoweeya aroosaddii arooska waxba ha ka baqina dad ayaa jiro soo dhowayntiina u xilsaaran haye waa kuwaana waa imaadeen dadkii idin soo dhoweyn lahaa aniga waxaan la yaabanahay yaash dadka meel walba aan joogno sidee ku ogaadaan sidee isku ogaadeen annaga meeshaan marayno maxaa ii soo kuure ani maxaan sheegi karaa adinkaa idiin xeranaa teleefonkeyga adinkaa haystiin waa damiseen baaritaan way ugu samayseen anla i kurkuure dhexdiina iska shifoosiin adinka baaritaan isku sameeya horta hore adinka le waa shakiga waddadan waa wadda xira soo ma jeedin waan ogahay aniga بلو وعذرا موجسين انت اللي نسوي وازدفاعسين لكن انيقا مركي واد امانيسن لكن ما مركي الابورك لا تو الابورك عيدنك يجرو كوان ها مليننا كوان waxaa beedbeelada barooba leeyahay kuwa xagga jiro waxa waaye filimka bilaawiis ila dhamaadkiis yaa ku wiiri alboorka aan soconaa yaa ودان aniga ii sheegaba toos aan hindi u tagaynaa yaa
helikobtarkan ilaa elboorka ayaan ku tegaynaa qorshaha ka horeysa okay ma yaash akhbaar xun ayaan kuu hayaa nin ciidankeena ka mid ayaa la dilay ninka aad haysid sida ugu dhaqsiyaha badan iigu keen mii maqashaa yaash 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 annaga waqti xun ayaan ku jirnaa sababtoo ah ciidankeena hal ayaa loo dilaya qofkii dilaayan ilaa hadda annaga ma naqaano haddaba waxaad ogaataa anaga qof inuu daba taagan yahay maxaa yeelay ayaga sidee ku ogaaday anaga elboorka inaan jirno oo meeshan aan joogno waaya haya yuu yaha qofka haddaba qalad ayaa jiro waxbaa qaldan mana aqaan waxay yihiin yaash adigina ismashquulisa maahan ninkan waqtigiisa ayaa halahan ku ekahaa ismashquulin adiga waa sax laakiin ninkan dadkaas maxay u dileen maxay tahay sababtay u dileen midas ayaan fahmi la'ah ninkan ciidanka u shaqaynaya markii ay ogaadeen annaga inay naga badbaadin karin waxay ku qasbanaadeen in ay dilaan haa laakiin dadkaas anaga wayna dili kareen waxna ma nagu samaynin adiga ma hubis ninkaas inuu dhintay maya haye askari miyay xamanayseen waa ogahay inay xamanayseen laakiin arrintaasay ku dhacday ma ogid adiga marmar waxaa jirta nasiibka uu ku saaciidaayo anna nasiibkayga i saaciiday hawsheedana waan ku guulaystay maxaa yeelay weligaa ma maqasha xabbad markii lagugu dhufta sunteeda jirkaada inta ku saa 30 ilbiriqsi nafta qofay ka dhacda lagu malayo run ahaanta adiga qorshe fiican aad ciyaartay balse waxaad ogaataa gacanteeda inaadan ka baxsanaynin oo aan gacanta kugu dhigi doono goor dhow adigan bood cidla meeshan ku haysaa saaxiibo waxaan ku weydiinaa qofti miskoolka ka waran agtaada ma joogtaa saaxiibo qoftaas ii ilaali taadoo kaliya ka fikir ilan dadkaas wax badan adiga kuma badbaadin karaan saaxiibow salaanaan kuu taagay guuldaro dhan ma ogolid carab madax kacishiga foortaa ku tahay saaxiibo guuldariska ogolowno haddaba waxaad ogaataa goor dhow inaan gacanta kugu dhigi doono saaxiibo runta dan kuu sheego dheeshaan aniga ma bilaabin laakiin waa ballan inaan dheeshaan dhammaystiro anaa dhammaystira soo xiraayo miskoolka taleefonka igu dhiib haddee ayada ahaan lahayn hawsheeda ma kala socon lahayn maxaa yeele saacadda gacanteeda ku xirna i saaciida moogtaani haa ka bax qad maxaa kugu dhacay keen gacantaada maxaa kaa qaldan yaash adiga sugbal yaash maxaa kugu dhacay gacantiina waa uu ka baxsaday yurub meesha hore ka tagi karaa hadda waa ina adkaanaysaa sidaa idinka gacanta ugu soo dhigtaan mar kale keekey wax ii sheeg ninkaas iyo saacaddaada maxaa isu keenay wax ii sheeg adiga istaag waryaha dhaqaaqin adig miya iga tagoo iga nixisee gacmaha madaxa saara adigoo raalli ii soo raac safaaraddan ku geynayaaye waa soo dahday 3 daqiiqo ayaa dib u soo dhacday wixii aan rabayna waan gudbiyey caddeenna ma haysid marka waxba ha isdaalinin ha ii soo dhowaanin xabad maa igu dhufanaya igu dhuf taliya aniga iga raali noqo ninkaas isla markaas waan tooga kara laakiin aniga ma tooganin
waayahay keekey iska soo laaba adiga marka waddankaada ku soo laabo maya sabab keekey ma soo laabanayso waryaasha adiga hadalkayga si fiican u maqal ayadana kuma qasbo arrinta saacaddane saacaddan ayuu ku fahansiinaya iyadoo suuxsan ayuu ka faa'iidaystay waxa uu ku sameeyey qof walba ayaa lagu samayn karaa ayadana arrintan kuma qaldana gordon anigaa gacanta ku soo dhigaya bay maxaa kugu dhacay ninkan ciidankeena hal ayuu dilayaa waxay la tahay jaineska inay garab siinayaan asiga laakiin sidee ku dhacday sidaan waan la yaabana aniga sugbal taliya isoo wacaaye halow taliye keeke qolada shiineeska aniga ayaa la xiriiray waxayna igu dhaheen wixii warbixine annaga ayaa idiin soo gudbin doona idinkana waxaad ku khasban tihiin inaadan waxba dhaqdhaqaaq suubinin waayaha taliye yaash adiga xaggee u socotaa akhbaar ayaa ma sugayna akhbaartaan oo la soo gudbinayso aniga sugitaanan ma qoro wixii waa emergency yaa qeeyaash maxaa kugu dhacay huux kan waay soomaan waxaad u baahnayd haa waxaan rabaa 24 saac gudahooda hindii inaan kaga arsado dhibaatada ii geysteen aniga laakiin adinka marnaba ha ka shaqaynina kalsoonideeda okay hadda waxaad u egtahay dad magacyadooda inoo keenayo haa muddo 5 daqiiqo ayaan kugu keenaya magacyadooda haddiiba 5 daqiiqa wax walba ku keenayso in loo gali karo ma tihid markaas هاي لي زون شين لي زاو شين لي زاو شين هذيك ما كفتميسا ما ايغا واي لي زاو شين قفك رادينا الوا هذيك يا bishii la soo dhaafay waxaan warbixin ku maqlan in laba hindiya la dilay China gudaheeda China inay ka dambeeyaan ku sheegay saaki warkii soo gaaray ayaaba sidaan u qoran bal fiiri maxaan ka qarsan hadda ii sheeg maxaa ka dhihi lahayd arrintan marka poor guy warheedhama waxay kula noqotay lacag darteed waxaan inaan samaynayo maya waxaan u baahanaad adiga haysaa waaya ii sheeg maxay inaad ku samaynayso maxay tahay dantaad leedahay waa maxay halow tali intee joogtaa ii sheeg baba gurigaaga ayaan joogaa adigaan ku soo raadiyey yaakhay adigana mar kasta markaad imaanaysa ii sheegno cabitaan qabow aan ku diyaarin lahaa waa ku soo dhoweyn lahaa hay baashaal ma ii soo wacda yaakhay dadkeena hunuudda halkan dhib ayaan qabnaa annaga maxay tahay balbadaad ku hadlaysa adiga tali aniga sideedaba howl qabyo uguma tago mar dhowna waxaan kuu sheegayaa hal qof inaan ku tegi rabo qofkaas markii iga badbaadinaya ii sheegba maxaa ma ka naxday ma loo baahna inaa ka naxdid adiga mid sameeye miskool iska guriso iska bax meel buur ah deg guri macaan oo qurux badan ka dhiso noloshaada kaal arag ka dhig maxaa ii daba taagan tahay inaad iska hartida kuuroon saaxiib haddaba waanideeda dhegayso maxaa yeelay adigoo hubka ganacsada ayaa haddana guri aan daaqad lahayn aad deggan tahay
warka soo deeber hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan rabaa howl muhiim ah inaad ii qabato yaash adiga xaggee joogtaa ninka jaanahayna aawe wuu dhintay yaa maxaa tiri haa waa la dilay hadda ninkan sideen ku raadin karna annaga maatanis ayaa noo sheegi kara ninkaas hagaag haddaba waxaad samaysaa maatanis wac noo balami maatanis taleefonkaa ma qabanayo message ayaa u dirayaa okay adigan kabar sugaa adig ma iga ogtaa inay meeshaan tahay ciwaanka annagana la soo siiyey waa halkan Martinez ayaa u baahan yo WhatsApp graphics-kaaga ayuu gabal kor u haday war Martinez ayaan rabaa aawa ayaan ku gabadha Martinez ay raadinaysaa oo Martinez ma raadinay kor ayay saaran tahay okay nakeen ऊपर aniga waxaan u maleynayaa qofka raadinaya waxaad u malaynaysaa nin aan raadinayn soo maaha qof dumar ay isku bedeshay adinkana dumarkiina waxa horey kama fahantaan gadaal eed ka मेरे कुछ हुआ हुआ तेरा नशा है चढ़ा चढ़ा होश में रहा है उड़ा 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 काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ I love you I love you I love you qoftan iyadaa u baxsan maba oga meelay joogto shiif arrimihiis maxay noogu sheegi kartaa marka Michael Talalnung Valakit, Anevesh Shiv Sharma. Een probleem. Er van egy feltételem. Kefélni akarok vele. ay shimbiryadan maxay sheegtay waxay ku tiri wax waliba waan kuu sheegay war wax walba ay rabto u ogolow anaga waxaan muhiim noo ah shiif inaan helno ma igu hubtaane maxaa dhacay Okay. Kefil heads Pele. Mikor? waxay tiri soo baxna keen marka hore hawsha ha ii qabato kadib wax la xiriirtan ha siinay Amint megadad a hezitit. Okay. Felőlem mehet? qoftan aniga meel qumano gabadhan ayada ayaaba degdegsan wax waliba sidee taa ayay u qabanaysaa farmashinkana si sax ayay noo siinay adigu sideed ku ogaatay degdegana maxaa keenay Mondd meg neki, hogy fürödjön le. Iszonyatosan büdös. haddana maxay sheegtay adiga qubaysan oo saaxiib malisnaba ya isgaadgaadkan waa maxay adiga gudaha sideed ku soo waa gashay kana shaarkaagii waa maxay dantaad leedahay adiga micnahaaga yaaqi meeshan soo fadhiiso adiga maxaa isku dabaaleynayna ya sabab soo fadhiiso maxaa dhacay adiga sii dayan ku leeyahay
وري أنا ما قعنت هذه قادسة أخون مياد إلى هذا ورخوفك هدا وقالت مرنا قعنت هذه ما قادين ورنا عصاياتها وريا ورقعنت ورا سجين وريا ورسيتها وريا اقفوا ياش وحاول ليه ايه كلبي ما حد عينه قبل حاول حجيه وحد سلميا حجي ميا كوغو حرتينا war aniga tacbaantan intaan geena aniga keekay maxaa waxaan doqonkaad ii keentay wuxuu fahmaaya malo war waa dabaal hooshaadan aniga waan kuu qabtay doqonkana madax ayuu iga cunay wax dhibaato ma jira keen war waxaan dabaalka mar dambe ii keen aniga war baxtaan geena adiga tacbaan de ninka raadinayna waa kana ciwaankiisa halkan ayaan ka helaynaa ninka meelahan kama foga wax yar ka hor halkan ayuu joogay waa inaan raadinaa tartiib waan ogahay meelahan iska fogeyna asiga xageen ka heli karnaa halo soo hadal war warbixinta ICC iyo magaca waa sax laakiin ninkaas 10 sano ka hor ayuu dhintay ya halo jallo halo és könyörületet sokasága szerint töröld el gonoszságomat, most meg engem mindinkább gonoszságomat, védőidem előttem nagyon shit حسمي ويو بحسن رئيس الوزراء هذا أسيق يا هوش أسكون فلينايو ياش سودا
taliga aniga waxaan doonayaa ninka la leeyahay shiif shankar arrintiisoo idil inaad ii soo gudbiso siduu u dhaqsiyaha badan waxaan rabaa ninkaas inaan ku soo xiro taliya waqbari adeena arrintaan ha ka seexanin waa inaad xoogga saartaa ninkaas waa nin khatar ah waa inaan gacanta ku dhignaa sidaan kuma sii deyn karno dhibaato badan ayuu geysan karaa okay indiya iyo xiriiriya hawshaas si fiican ay u gudatay warkeen maanta oo ayaan ku soo wacay taleefankaagana biisi ayuu ahaa beenta ma taleefankii waxa biisi ka dhiga oo mashquulsan aniga laakiin waxaan kugu mahadcelinayaa inaad hawshaada si fiican aad u gudatay aniga ayaa isa sabanaysa soomaa waan gartay mahadsanid waa sii baxay baay baay ان adigan ku baahannahay yaa maxad iga soo doonteena waa hoosh noogu dambaysa oo noo qabato halkan aniga hool ma qabana ayaan ku dhahay dhowr mar ayaan nii sheegay war qoftan hadalkeeda ma fahmay maxay sheegtay hoos may diidan tahay way qabanee annaga cirka ayaan u diray bravo saasan kaa rabaa anna waa ballan inaan ku qorxo ha lagaa arko adiga kafayga inaadan ka helin adiga mid ma ku weydiiyaana maalintii maxaad ii badbaadisayne sababtaa ii badbaadisay maxay tahay mii sheegi kartaa sababtay anigaa waalan adigana waxaa tahay qofka aniga celceliyo howlgal ayaa lay diray howlgalkaasna wuxuu ahaa nin burcad ah ugu dambayntii ninkaas burcadkaa waan qabtay markaan qabtayne xabad aniga waan ku ridi waayey markuu iga baxsaday kadib 5 qofood ayuu dilay markaas wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda aniga waxaan noqday qof cabsanaayo mana aqaan sababtaan u cabsanaayo waxay tahay hariish aniga ilaa yaraanteeda ayaan isnaqaan iskool ayaan ahayn booliskan hal mar ayaan wada qorannay labadeena asiga mar walba wuxuu dhihi jiray dhib haddii aad gasho aniga ay ku badbaadinayo waad waalanta ayuu dhihi jiray laakiin aniga maalinna kuma fekerin ninkaas aniga inaan uwaarsan doono oo dalkiisa aniga aan ka dambayn doono maantana tii ayaa dhacday
gacantaan ku dhigi doonaa haatali hadalkaada saxay waa magaciisa jief ma ahayn ee bartaabsiin ayaa la dhahaa waxaana ka soo ogaaday qolo shiinees oo annaga xiriir leennahay aabbihiisna wuxuu ka tirsanayay qolada dabagalka ee shiineeska qalad oo galay darteeda ayaa asagana shaqada looga saaray wiil dhintay oo saaxiibkiisa ayuu magaciisa isticmaalayay saas darteeda ayuu mar walbana u badbaadayay waxaan annaga u qabobaynin arrintaas ayay ahayd magacaas faalsada uu isticmaalayay sidaas ayaannu ugu wacnayd inuu naga fakado goormay ahayd 2012kii yaash ninkaas waa inaad dabagal fiican ku samaysaa sida uu dhaqsiya badanna soo qabo maxaa tiri bartaabsiin ah haa qofkaas annaga mana ugaarsanaya annagana ma ugaarsanaya maxaa la dhahaa annaga siduu noo ugaarsanaya 5 ciidan ayuuba naga dilay ninkaas ujeeddo ayuuna leeyahay koley ma sahalsana asiguu qorshuu u leeyahay koley qof ayuu damacsan yahay qofkuu damacsanaan karaa xaggee u socotaa kaali la hadal su'aasha haddii weydiis jawaabteeda aan ku raadinaa haabo eelboorkan hadda u soo socdaa meeqa saacad ku beegantaa diyaaradda ii sheeg bal eerkii xaaladda ma sheegi karaan waqtigiin ku beeganaa inaan imaanin ama aqool eh sida aniga aan rajayaa laakiin waa imaa aabba maxaad saas u dhahaysaa maxaa dhacaya maya xoogaa aniga inaan imaada waa rabi laakiin arrin waxaa jirta oo aniga aan ku baaqan karo laakiin waa arkaynaa xaaladda siday noqoto teeda kale ani waqti badan ani adiga wax tarankiima isla cabin oo dhowdhowga dadka dhigaya waxaan rabi hal mar inaan isla fadhiisano aabba maxaa saan uga hadlaysaa maxaa dhacay maxaa isbedelay dhib maa jiro waxaa jira wax aniga aan kaaqari oon kuu sheegin laakiin anaa kuu sheegaya kow dheh aabba maxay tahay waxaad iga qaraysa aabbo waxuun ii sheeg yarkay maxaan kuu sheegaa muddo 3 sano anima ku dhehino kambaniya u shaqeeyaa been waaye romland joogi aniga halahaas adiga ka akhri roma aabba maxaa ku hadlaya aabba dheeshi iga dhaafno yarkay waqtiga igu dheeli aabba maxaa ku hadlaysa adi aabba imaw wax walbaba waa ka hadlaynaa agteeda imaw aabbo yarkay waa la daahi bes waaye aabba maxaa waaye waxaa ku hadlaysid aabba agteeda imaw wax walbaba anaa kaa dhaadhicinayo yarkay hadal kale ma jiro habarta iyo walaashaada iyo ogow aabba maxaa waxaa ku hadlaysid adiga bes waa ma kugu celiyahay war kale xitaa ma jiro waa ku jeclahay yarkay aabba anaa kaa daran laakiin maxaa bes iga siibkan iga siib suka udhan maya warbaahintiina ninka in wax buubuunisan oo keliya tarabtaa ninkaas wuxuu yahay ma lahan annaga waxaan maqalnay ninkaas inuu ganacsado ahaa maya ganacsado ma ahayn ninkaas jaajuus ayuu ahaa wuxuuna u shaqaynaya dowladda jaynaha laakiin waddanka indiya ciidamadooda ayaa waxay ku sameeyeen baaris dheer gacantaynu ku soo dhigeen ugu dambayntii waxaana la ogaaday waxa uu yahay mudankiisaana hadda la marsiiyey oo ciidankii ciqaabtii uu markaasi mudnaa ayay ku dhigeen kadib markay gacanta ku dhigeen okay su'aal kale ma jirta weliye garaacal noqdaan koley aabbihiina wixii dhaxal uu ka tegay idinka ayaana lagu qoray haddana bangiga sidaa qiyaasaa waxba kuma jiro hadday ugu badato 2 jijinoo aniga aan leeyahay oo keliya ayaa ku jirto waayo aabbihiin wuxuu ahaa aabbihiin ayaa wuxuu ahaa caado qaate hadda kor aniga waan la hadlay waxaan dhahay iska dhaaf waxaan dankuwa ma aha balse wuu iga diiday dowladda hindiya markaan la hadlana aan dhahay ninkayga iska dhaafa way iga diidan iyagana waxay dhaheen ninkan waa dambiile labadiina is ogaada hoy
hadalkaada sax ayuu ahaa magaciisa jiif ma ahayn ee bartaabsiin ayaa la dhahay magaciisa runta aabihiisa bartaabsiinna jaajuus oo wuxuu ahaa shiineesa hindiya ayuu ka jaajuusi jiray askariyan ahay khayaanoolaa tahay waxaas iska dhaafa oo guuldaraysanaysiin adinka ciidamadeena sirdoonka qolo shiinees ayaa gacanta ku dhigtay wayna dileen adig maxaad malaysa lacag darteed waxaan inaan samaynayo war heedha lacag darteed waxaan uma samaynin aniga sanadkuu ah 2012 soma lix sideed 12 dheesha hadda ayay dhadhan yeelatay 2012 dheeshan aniga ma bilaabin ilaa hadda ninkaan micnihiis ma fahmin aniga 2 sano kadib bedel ayaa lagu sameeyey hal sanana wuxuu qaatay fasax aroosa ninkan waxaa la dhahaa rajeshwar shaqada waxaan isla bilownay 1980 anigaba waan maqlay ninkaasi inuu yahay nin ganacsada ah dadna waxay dhahayaan waa nin basaas ah laakiin runta haddii loo hadla ninkaas wax u shaqaynayay dowladda China oo India ayuu ka basaasayay balse yaa yaash hadda ayaa telefoon laygu sheegay ninka anaga raadinayna waldan bareem inuu joogo wuxuu rabaa howlgal inuu fuliyo aan ka hortagno weerar ayaan ku qaadanaa ninkaas meeshaas ma joogo ee halkan ayuu joogaa sidee ku ogaatay halkaa inuu joogo adiga ninkaas wuxuu doonayaa Fadish Sharma inuu dilo Budapest ayuu la joogaa halkan kama dheero fanproj.com fanproj.com Poland ma jiro ee annaga ayaa qorshe noola degay qorshahaas oo ah inaan been noola sheego saxanta maxaa yeelay qorshahaas gabadhiyaa noo degtay oo beenta noo sheegtay inuu Poland joogo taas qof ahayn sambuuska afar geeskaa nooma sameynin ayada waay wasaqada laakiin hadda uu sheegaya wasiirka soo ha celini haddii ninkaas wasiirka aa celiso anaga ninka aan raadinayn ma heli waaya haddii wasiirka uu ninkaas dilay maxaan samaynaynaa sheeg waan qasbanaynaa inaan badbaadino sideen ku badbaadinaynaa anaga xabad ku dhifanayno ya ninkaas wasiirku xabad ugu dhiframa inuu dilo anagan si aan badbaadino ayaan xabad ugu dhifanaynaa ninka xabadda ha lagu dhufto ma xumo ee caddeyn miyaa u haysaa inuu imaanayo waa imaanaa waayahay ninkaas sidee anaga gacanta ugu dhigi karnaa ii sheeg dhib ma lahan xabadda markaan wasiir ku dhifano asigaaba isqarin karin oo bannaanka iskeenaayo markaas si sahlan ayaan gacanta ugu dhigi anaga ninkaas sidaa u qabana darteed wasiirka naftiisa miyaan halis gelinaynaa waa laga fiican yahay middaas waa lagu qasbaya maxaa yeele waddo kale anaga ma haysano aniga shaki ayaa iiga jira wasiirkiina xabadda ku dhufanaysid aniga kuma dhifanayo ee adiga ku dhufanaysid yaash adiga mar kadib waa waalatay horta hadalkayga dhegayso war horaa u socda dhegayso war aniga waxaan ku dhahay wasiirka xabad kuma dhufan karo mana ku dhufanayo sidee wax ku fahansiiyaa waad ku dhifan kartaa
waxba aysan ii jibin anigaa garabkaaga taagan waad ku khasbantahay inaad ku dhifato okay nakeen Nagyon köszönöm, hogy megtisztelték rendezvényünket. Külön megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözölhetem az indiai miniszterét, Brigitte Varman. Tisztelettel megkérem, hogy fáradjon a színpadra, és tartsa meg ünnepi beszédét az első indiai-magyar konferencián. Mr. Varman! Thank you. wasiirada dhammaan waan salaamay sidoo kale mudanayaal iyo marweyn idinkoo dhan waa idiin salaamay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kulankan ka istaago weliba anigoo u hadlaya magaca waddanka indiya iyo dowladdan maadaama angeria aan la yeelanayno sheer ama saaxiibtinimo waxba aysan ii jibin adiga xabadda waad ridi kartaa kulankan isagu nimaani waxaan rabnaa inaan ku falanqayno maadaama aan wada kaashanayno ammaanka waddanka iyo kan angeria iyo midka indiya inaan hal meel ka wada shaqayno ay sirdoonnadan naqdaan kuwa sumid ah
ninkan inaad badbaadisaan wax aad ka faa'iidaysan malaha inaad dilaa jirto war maxaad rabtaa yaana tahay adigii sheeg raaj bartaab wiilkiisa ayaan ahay raaj bartaab ninkaasi ninkii aad adinka khayaanoolo ka dhigteen ninkaasi maxaan khiyaanoolo ka dhignay dembiile ayuu ahaa dembiile wax uu ahay ma laha meeqa sano ayuu idiin shaqaynaya adinka 30 sano ayuu daacad idiin ahaa muxuu ka faa'iidaysay maxaase waajibkiisa ka dhigteen ninkaasi daacad ma ahayn jaajuus ayuu ahaa ee dalka ayuu khiyaanaya hooyadiina qaladka adiga aad gashay darteed ayay isku dishay maxay galabsatay marka familkaaga qalad waa laga gala been maahan laakiin adiga waxaad samaynaysid wax saxan miyay kula yihiin aniga ninkan dartiisa dad badan haddaan u lahay xitaa waxaan u arkay malaha waan dilayaa ninkan iga istaag xadkaaga ha ii soo dhaafin hana iloowin biskooladda aniga gacanteediina ku jirta waqtigaan wixii ka bilowdan waad xiran tahay abba miskool xabsi inaan ka baqay may kula taade xabsiga diyaar ayaanu ahay weliba haddii la rabo ha lay dilo dhimasho ma ka baqay aniga ninkan inaad dilaa jirto ninkan markaa dilo wixii la raba ha laygu sameeyo wejigaaga si fiican u fiiri qof geeri ka baqay nuu ekahay ninkan waa dilaa cid iga hor istaagi kartana ma laha qof iga hor istaagana asna waa dhigaa haddaan adiga ku dilin ogow 17 ciidan ayaa madaxa maya waxba ma samayn kartid haye taliye mii dilaysa adiga hadda kadib ciidankeena adiga dhib uma geysan kartid bravo askari ninkan mudankiisa ayaad marsiisay haddaba ma waxay kul tahay ninkan xabad inaan ugu liftay si adiga ku badbaadiyo 17 ciidan sharaftooda in badbaadinaya micnahaaga aniga ilaa hadda kuma dhihin adiga waad badbaaday yaa maxaa ka wadaaniyo sidee wax kaa yihiin ninkan hooyadiisa adiga madaxaagii isku dishay ciidankaasna adiga dartaada ayaa loo dilay macquul maahan taas haddaba waxaan doonayaa ciidankaas sharaftooda inaad ku soo celiso haddii kale aniga gacanteeda kama badbaadaysid ninkan nin laysku halayn kara maahan sharci qabtana ma jiro sirdoon raaj batel markii lagu soo eedeeyey inuu dalkiisii iyo dadkiisaba qayaamay ugu dambayntii waxaa la ogaaday inuu wax dembi haba yaraatee uusan gelin dalkiisana uu qayaamin asigoo keliyana maahane midaasi horta waa run sirdoon raaj batel annagaba waqti hore waxaan u malaynay nin waddankiisii iyo dadkiisaba qayaanay laakiin xilli dambe ayaan waxaan ogaanay ninkaas in qalad weyn ay dowladda ay ka gashay sharafkiisa iyo sumcaddiisana ay meel lagu dhacday weliba tan dadkiisaba xitaa rajabeel ay ku riday dowladda indiya iyo shacabweynaha ayaa taxsiye tiiraanyanle waxay u direen 17 ciidamo ee sirdoonka ahaayeen kuwaas oo si sharci darraa loo dilay wasiirkana taxsiye tiiraanyanle wuxuu u diraya dadkii meeshaas ku geeriyooday eheladoodii haa waa run halkan ayaan ugu tacsiinay dadkaas waajibkooda ayay guteen anigan hadda ayaan gudanayaa hagaag askari si wanaagsan ayaa hooshaada u gudatay dalkaagana waad ixtiraamtay waan kaaga mahad celinayaa sida sharafta badanna u gudatay howl fiican ayaad qabatay maskaxdoo keliya kama tashta qalbigana waan ka tashtaa run ahaantiina qoftan aad ayay u fiican tahay yaad ka hadlay adiga yaa la hadlaysaa adiga aniga sida haddaba warkaad ku maqlayseen waraysigii wasiirka aan la yeelanay ayaa wuxuu ku raaligareeyey dhibaatadii loo geystay 17 askari ee lagu waxyeeleeyey waddanka China iyo gudaha waddanka India wasiirka maanta runta ayuu ka hadlay dib u soo noqotay inay naqlaan dad aan dambi lahayn waxa uu sabab ahaa askariga lagu magacaabo Yash dowladda waxaan rajaynayaa shaqo kale inaan iskugu soo laabano annagana waxaynu leenahay inaysan dhicin arrin sidaas oo kale mar dambana dowladda India aysan u laabanin ay mar walba ay ka fikirto askarta xuquuqdooda iyo meelaha ay wax ka qabanayaan iyo arrinkaas oo idil dhan inay iska hubiso aysan marna ku xadgudbin